love you my baby, I love you my baby, love you my baby. fadlan haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah fiidiyogan ku diran yahay fadlan ha fiirso. sheekadan waxay ku dhacday nin magaciisa la yiraahdo Jerry iyo familkiisa waxay ahaayeen dad lacag leh. sanad kastana bil ka mid ah bilaha ayay waxay aadi jireen jasiirad cusub ee aadaanne hal bil ayay waqti ku qaadi jireen kadibna magaaladooda ayay kusoo laaban jireen. laakiin Jerry iyo familkiisa markaan waxay imaadeen jasiiro hore loo degnaa gurina ka dhisnaa. Jerry guriga ka dhisnaa jasiiradda ayuu iska dhex joogay, game ayuuna iska dheelayay. sida uu gameka u dheelayay hal mar ayuu fikiray, wuxuuna ka fikiray in uu doonta soo xiray xirig ku soo xiray iyo in kale. waqti yar kadib wuxuu soo xasuustay in uu quful ku soo xirin kaliya oo albaabka soo laabalay bis. kadib banaanka ayuu u soo baxay, sigaar ayuuna iska shitay. kadib wuxuuba arkay in ay doonta albaabkeeda furan tahay. wuu isku naxay, isla markiina wuxuu soo qaatay toosh wuxuuna soo aaday dhankii doontii. markii uu soo galay wuxuu ku fikiray in hooyadiis iyo albiis albaabka ay iska fureen ee iyaguna ku jiraan. laakiin mar labaad ayuu wuxuu ku fikiray haddii iyaga iska furi lahaayeen way u imaan lahaayeen wayna ku qayli lahaayeen sababta uu albaabka doonta furan ugu tagay awgeed. kadib Jerry wuxuu go'aansaday in uu doonta qol kastoo ka mid ah uu tago uuna soo fiiriyo. gudaha markii uu soo galay wuxuu maqlay shanqar qaybta hoose ay doonta ka soo yeerayso. isla markiiba Jerry wuxuu u soo degay qaybtii hoose asigoo ogaanayo qofka joogo. Jerry markii uu hoos u soo degay wuxuu arkay in qof ay doonta ku jirto. nasiib xumo Jerry qofkaas wejigiisa ma arkin sababtoo ah meesha waxay ahayd mugdi. hadduu toosh ku qabtana wuxuu ku baqayay in uu meesha ka cararo qofkaas. kadib Jerry tooshkii ayuu damiyey, wuxuuna ku fikirayay qaabka uu qaban lahaa qofkan tuuga ah oo doonta soo galay. Jerry hore wuxuu u dheeli jiray ciyaaraha magacooda la yiraahdo rugbyga, wuxuuna ku fikirayay qofkan sida ciyaaraha rugbyga ee dadka isku qabtaan oo kale in uu u qabto, kadibna meel xun uu ku dhufto, sidaasna ninka oo ugu suuxo. sidaas ayuu go'aansaday. kadib luuquu ku jiro kasoo baxay, wuxuuna dhahay istaag tuugyow. Jerry hal mar ayuu neef qaatay, orod ayuuna soo taabtay inta ugu xoog badan oo ordi karo. wuxuuna doonayay ninkan inuu si xun derbiga ugu dhufto, laakiin ninkii tuuga ahaa hal mar ayuu kor u booday. Jerryna derbiga ayuu fiiraa gashtay. run ahaantii Jerry si xun ayuu derbiga ugu dhacay, xanuunna wuu hayay laakiin ninka ma dareensiinayn. kadib ninkii tuuga ah wax ayuu soo qaatay. Jerryna wuu fahmi waayey wuxuu wato, hal mar ayuu lugta bidix darbo beerka ugu dhuftay. ninkii tuuga ahna wax uu gacanta ku hayay ayaa ka dhacay. kadib Jerry fadhiga ayuu ka soo kacay, wuxuuba arkay ninkan oo sii cararayo. ninkii tuuga ahna wuxuu ku booday badda. xoogaa kadib Jerry wuxuu daaray nalkii doonta, wuxuuna fiiriyey ninkaas wuxuu watay waxay ahaayeen mindi af leh. isla markiina Jerry wuxuu u wacay booliiskiina meeshii ayay baaritaanka sameeyeen. kadib mindidii ayay soo qaadeen, interview ayaa laga qaaday Jerry. laakiin nasiib xumo ninkii lama soo qaban. waxaana loo sheegay Jerry aabiis iyo hooyadiis arrinka aad ayay ugu naxeen, waxaana go'aansadeen in ay meesha ka tagaan. fadlan markasto aad jiifanayso ha hilmaamin inaad daaqada soo xirto. haddaa hilmaamtana inaad daaqada soo xirto tuugii kuu soo galo ku jihaad. haddii aad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe saar. haddii aad hore noola joogtana videoga like garee. mahadsanid. 내가 포기하고 싶을 때도 나는 왜